الصالحين الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا waxaan rabaa halka inaan ka salaamo wasiirka gaashaanliga wasiir dowlaha sanatarada xildhibaanada taliyaha xoogga labada taliyaha xoogga hore iyo taliyaha xoogga cusub taliyaha ciidanka booliska saraakiishii sareeyaasha ahaa halkan ka hadlay oo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya soo maray taliyaha ciidanka dhulka cusub ururada bulshada dadka ka jooga hay'adaha ama dawladaha caawiya runtii qayb weyn ka qaatay dhismaha ciidanka oo halkan fadhiya dhamaantood waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. farxad bay tahay maanta inaan wareejiyo ciidanka dhulka waxaan xil ka hayaa 2 sano iyo 6 bilood. haddaan si kooban u soo koobo maalintii aan xafiiska ciidanka dhulka la wareegay hal waax oo shaqaynaysay oo guna qaadanaysay ma jirin. waxaa maanta shaqeeya 13 waaxood oo guna ciidan qaata oo xafiis fadhiya waxaana gacan ugu siiyay uguna mahadcelinayaa taliyaha xoogga aan la shaqaynayay. ciidanka dhulka markii aan la wareegay xilkiisa waxaan wada tashi yeelanay taliyaha xoogga oo runtii aan aad ugu mahadcelinayo sida aan isugu dhaweyno aan u wada shaqaynaynay. waxaan go'aansanay inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan dhisno. inta aan xilka anigu hayay waxaa ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 5 guuto iyo qayb iyo 2 urur oo madax bannaan oo special 2 urur oo special ah. sidoo kale waxaan go'aansanay inaan tayayno takhasusaadka ciidanku uu leeyahay sida sancada gaadiidka warisgaarsiinta wax alla wixii takhasus ahaa inaanu tayayno ayaanu go'aansanay. waxaanu ka soo saarnay koorsooyin aad u fara badan oo takhasusaad ah oo ciidan walba heer urur aan gaarsiinay inay yeeshaan takhasuskoodii u khaaska ahaa. waxaa la kordhiyay tababarka ciidamada aan aad u kordhinay waxaan xoogga saarnay dishibiliinka iyo wacyigelinta ciidanka. waxaan rabaa maanta inaan ku soo dhaweeyo ciidanka aan dhisnay taliyaha cusub oo ibadalahaya oo ah saaxiibkay aan rajaynayana insha Allah halkaas inuu ka sii wadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa mar halkaas inaan uga baxo dhismaha ciidanka inaan u gudbo xaaladda ciidanku hadda ku sugan yahay ee goobaha dagaalka iyo waxqabadkii dagaalka. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 14 August ee sanadkii hore marka laga bilaabo iyo 2 bilood oo ka horeysay oo waliba preparation aan ku jiray waxaanu isu diyaarinaynay inaan la dagaalano cadawgan khawaarijta ah oo ummadda Soomaaliyeed dhibay. dagaalku wuxuu ka bilowday oo shabaab xilligaa joogay wadada Matabaan iyo Beledweyne isku xirta ee laamiga ah waa go'onayd. wadadaas bartankeeda waxaa yaalay jiirta qabnood ka sokay meesha bacda la yiraahdo control ay u yaala shabaab oo baabuur walba oo shacab leeyahay laga qaato $1 ilaa $1,500. isla markaasna waxaa yimid cadawga khawaarijta oo u tallaabay dawladaha dowladda dariska Itoobiya khaasatan. annagu 2 bilood ka hor muddada aan sheegay ayaanu ku jirnay diyaar garow ka kooban 2 ciidan oo runtii ciidan Beledweyne xaggiisa ka wajahan iyo dhinaca Matabaan. halkaasaanu cadawga waxaan u qorshaynay in halkaas weerarkaas uu ka bilowdo kana dhacay. waxaa Ilaahay nagu guuleeyay oo si degdeg ah loogu guuleeyay gobolka Hiiraan dagaalkii ka bilowday oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Hiiraan iyo macawisleyda iyo maamulkooda isku duuban aan wada qaadnay ayaa Ilaahay si degdeg ah nagu guuleeyay. waxaan noo soo baxay markii cadawgaas la jabiyay
guulo dhowr ah marka ugu horeysa xilli jiilaal ay ku jireen la joogay markaas waxay gubeen ceelashii oo dhan shacabkii halkaas waa ka kaceen markii ceelashii la gubay sidoo kaleeto waxay laayeen dad shacab oo waligoodba shacabka waa leen jireen ayagana ku carab baabeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa u suurowday iyo ciidanka deegaanka Hiiraan hal maalin ama 48 saac inay furtaan dhul ilaa 150 kilomitir laga bilaabo Takare ilaa iyo meesha la yiraahdo Bukure ilaa iyo Teedaan ilaa iyo meesha la yiraahdo Ali Ganay Baraagta Ali Ganay inta inay hal mar furtaan oo isku weerar ilaa ay yimaadaan Booco oo wabiga jiinkiisa ah macawislayda reer Hiiraan oo halkan ka amaanaya hal maalin bay waxay furteen 95 qori dagaalkaas waa dagaal runtii hadda aanan ka taariikhin karin baaxadda uu lahaa iyo qaabka u dhacayay laakiin noo qoran oo noo diiwaan gashan dadka reer Hiiraan aad bay qoryaha u jecel yihiin nin baa raggiisii laba qori qaatay markaasuu arbargaxa igu dhacay ay habaari qori la'aantu hay tahay qayb bay ka ahaayeen dagaalkaasu wuxuu ahaa wajigii koowaad wajigii labaad isla Hiiraan buu qorshihiisu ahaa oo ah cali halay iyo Sooman iyo ilaa tardo Harir Madoobe ilaa meesha la yiraahdo Moqokori ilaa ceel Qooxle intaasna wuxuu ahaa fayskii labaad oo isla Hiiraan ah ceel Qooxle waxaa nooga dhintay Allah u naxariistay rag badan oo ku shahiiday oo ka mid yahay in la magacaabana mudan yahay nabadoonkii weynaa ilmi Hagar Guure oo nabadoonka guud oo Hiiraan ahaa dagaalkaas wuxuu u soo gudbay gobolka Shabeellada Dhexe runtii gobolka Shabeellada Dhexe dadka shacabka iyo ciidamadu aan Shabeellada Dhexe u laabto waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dagaalka Shabeellada Dhexe balcad baa barta kulanka noo ahayd meesha dagaalku joogay oo ka bilowday baan idin tusayaa xagga kalena laamigu ahaa balcad buu ciidanka aan ku kulminaynay xawaaley baan ku weeraraynay oo muudada ku qaban xawaaley dhinacan kalena wuxuu ka joogay qoor dheere iyo waraciisa iyo alifool dheere iyo dhulkan oo ayaduna noo jirta kiiloomitiraad noo jirta oo aan aad u fogeyn ayaa dagaalku halkaa ka bilowda waad garan kartaan dagaalkaasu meesha uu joogay magaalada Xamar uu joogay waad garan kartaan iyo meesha maanta uu joogo aan idin sheegi doono ayadana dagaalkii halkaas ka bilowday oo runtii ayadana ay qayb ka qaateen Shabeellada Dhexe dadka shacabka mas'uuliyiin intuu ay qayb ka qaateen waxa Ilaahay nagu guuleeyay inaan buundada xawaaleyna qabanno qoor dheere iyo califool dheere iyo meesha la yiraahdo ilaa waraciisana aan ka saaro in aan u gudubno Shabeellada Dhexe ee shishe dagaalkaas wuxuu ka bilowday masaajid Cali Guduud waxa ku xigay Guulane waxa ku xigay Aadan Yabaal iyo meesha la yiraahdo Ceel Baraf waxa ku xigay Ceel Dheere Buraale asaguna sidaas u socday waxaan aad ayadana ugu mahadcelinayaa una xusahayaa dadka Shabeellada Dhexe ee qaybtan dhinacan soo xigta ah sida shacabkeeda iyo ay noogala qayb qaateen mas'uuliyiintoodaba oo halkan fadhiya mas'uuliyiintooda qaar ka mid ah magacaabayo Senator Afcaday oo intaan xabadda ku jiray aan marna naga harin dagaalka intaan ku jiray maanta xagee joogaa maanta wuxuu joogaa Ceel Cali Axmed oo 40 kiiloomitir Aadan Yabaal ka koraysa dhinaca uga abaar halka ka jirta wuxuu kala joogaa Galcad oo ceel oo meesha la yiraahdo Aadan Yabaal u jirta 80 kiiloomitir wuxuu joogaa Harar meesha la yiraahdo Ceel Dheer oo ayaduna aad garan kartaa 300 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho dhinaca kaleeto wuxuu ka joogaa oo raba ayadana inaan xuso Harar Dheere oo runtii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Galmudug iyo Mudug dadka shacabka ah isugu jira aan ka xusahayo daraawiishta wisileed
qaybta ay ka qaateen xoreynta xaradheere iyo guud ahaan daraawiishta iyo ciidamada deegaanka ee baxdo iyo dhuusamareeb iyo ciidanka uu hogaaminayay generaal maalin khayr allah siiyo iyo wasiir batari ayaguna ay hogaaminayeen oo isla xaradheere ah qaybaha ay ka qaateen ayagana aan xusahayo maantay waxaanu haynaa hiiraan shabeellada dhexe waa xor waxaa galguduud ka dhiman boqolkiiba waxaan dhammayn 25 aan dhammayn ayaa galguduud ka dhiman degmada ceelbuur iyo degmada galhareeri baa ka dhiman dhinaca shishe waxaan ka joognaa xaradheere dhinaca mudug waxaan ka joognaa meel la yiraahdo dhaghaya oo u jirta bacaadweyn 10 kilomitir dhinaca kale waxaan ka joognaa qaayib oo baxda ayaduna u jirta 40 kilomitir meel u jirta dhammaan dhulkaas aan sheegahay baabuurka halkaan ka soo baxa anigu markaan baxayo halkaan baabuurka aan uga baxo hoobiyo baabuur baan ku tagi karaa waa guul ummadda Soomaaliyeed xooga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka dalka Soomaaliyeed ay soo wada hooyeen waxaan rabnaa inaan ku wareejino mas'uuliyiinta xilka lagala wareegaysa annaga oo diyaar u ah waliba inaan la shaqeyno meesha xaaladdu marayso maantay waxa u dhiman rahaw intuu booda u dhiman wax yar baa u dhiman waxaan leenahay ilaahay ku guuleeyo waxaan rabaa halkaan inaan una tacsiyeeyo qaybna u ammaano xooga dalka Soomaaliyeed intii ku shahiiday dagaalka ee xooga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka xooga Soomaaliyeed iyo ciidamadii deegaanka xoreynta ee ku shahiiday waxaan leeyahay ilaahay idin naxariisto inta ku dhaawacantay inta ku curyaantay waxaan leeyahay ilaahay idin booga dhawo xooga dalka Soomaaliyeed ciidanka dhulka khaasatan iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay guusha halka ka sii wada guusha qofna iskama lahayn shacabka Soomaaliyeed baa iskale waxaan xoreynaynay waad ogtihiin waa dadka Soomaaliyeed waxaan ka xoreynaynana waa dadkiisi ninkii arka dadka laga xoreeyay dadkaas meelaha ay haysteen oo nolosha iyo wax walba u diideen ninkii arka oo Soomaali uhu ma fariisanayo uu xoreynayaa dalka aniga khaasatan anoo taliya ciidan dhul ahaan intaas xoreynaynay kaligay ma xoreynayn taliya xooga ila jiray saraakiisha qaybaha saraakiisha ciidanka dhulka barta hogaaminta dawladaha ajnabiga ah oo saaxiibadan nahay runtii ayaguna gacan naga siiyay diyaaradaha iyo hawada iyo taakulaynta intaba gacan naga siiyay u mahad celinayo dhamaantaya annagoo iswadaan xoreynaynay waxaan diyaar u ahay anoon xil hayn oo macawisleeya dalka inaan wax ka horeeyo diyaar baan u ahay anoo macawistayda iyo shaatigayga wata inaan dalka wax ka xoreeyo sababta waxa weeye qofkii arkay dadka dhibaataysan oo Soomaaliya ma fariisanayo intaas halkaas aan ku soo koobayaa waxaan rabaa hal qodob oo sareeyaasha iga horeeyay ka hadleen oo ciidanka in laga saaro siyaasadda waa la qabaa ciidanku siyaasadda shaqo kuma leh waa inuu xereeyunkiisa ku sugnaado oo shaqada iyo waajibaadka qaran oo loo diray uu hayo laakiin waxaan rabaa sareeyaasha inaan xasuusiyo mas'uuliyiinta halka joogta wasiirku naga qaado taayada aan ka soo baxna anagu laakiin siyaasadda yaa haya siyaasaddu xayndaabka ay guriga ay ku hoyotaa waa labada gole xukuumadda iyo dawladda madaxtooyada siyaasaddu marka ay wanaagsan tahay way soo caraftaa sida dhulku marka roobku ku da'o uu barwaaqo u noqdo dad iyo duunyo iyo neeflaba ay ugu liibaanaan baa loogu liibaanaa laakiin siyaasaddu hadday xumaato waa bulaacad waxa ugu soo horeeyo ka soo baxana waa qabiil iyo qabyaalad waayahay siyaasadda hadday soo fakato ciidanka ma ka hayn kartaa haddii la soo fakiyo oo raggii xayndaabka ay ku jirta ay ka soo fakato waxay ku soo galaysaa ciidanku wuxuu ka yimid bulshada Soomaaliyeed buu ka kala yimid runta aan isu sheegno shacabka Soomaaliyeed buu ka kala yimid markii aniga waxa la igu dhihi jiray ciidanka siyaasadda ka ilaal ciidanka siyaasadda waxba kama qabo diyaar baana laakiin aysan ugu soo fakan dadka iska leh oo mas'uuliyiinta oo siyaasadda xerada ay ku jirtay meesha ay ku jirtay aysan ka soo fakan hadday ka soo fakato waxbarashada iyo caafimaadka iyo nolosha bulshada oo dhan bay duminaysaa bulaacad qaraxday weeye intaasna halkaas aan qodobkaas ku soo koobayaa waxaan leeyahay qolo walba mas'uuliyiintu
meesha ay uga aadan tahay qolo walba meesheeda ha ilaaliso waa soo koobahayaa waxaan rabaa xogaa kaftanna way tahay kaftanna way ka xoog badan tahay odawaa aniga odawaaba in la bedelo waa sunno dawladnimaduna waa sunno laakiin anu waxaan is leeyahay waxa la ii bedelay waa gobolka Gaday odawaa maxaa loo bedelay aniga qadiyada la igu bedelay waa qaale odawaa malaha waa tii sunnada maadaama aan gobolka Gaday magacaabo waxaan leeyahay gobolka Gaday ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada waxaan leeyahay qadiyada qof ma lahan ee ummadda gobolka dadka degan oo dhan baa iska leh ayadana intaas aan ku soo koobayaa waxaan rabaa inaan u duceeyo una hambaliyeeyo taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka cusub ilaahay ha idin la garab galo ilaahay ha idin la garab galo ilaahay ha idin la garab galo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ayadoo mid ah oo nabad ah oo dhammaanteed isjecel in ilaahay meel isugu keeno baan ilaahay u rajaynaynaa oo ka baryaynaa dhammaantii waxaan leeyahay mar labaad baan dawladaha caawin jiray oo halkaan ay ku joogaan Mareykanka iyo Turkiga iyo Yurubiyanka iyo inta la yiraahdo ADMIS intaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh